Wefdigii Madxweynha Somaliland ee ku sugnaa wadanka Faransiiska ayaa bilaabay hawlihii ay u yimaadeen wadanka Faransiiska iyagoo wafdiga Madxweynha Somaliland uu kulamadii u horeeyay uu la yeeshay dhinacyada kala duwan ee safarkoodan ay u socdeen. Madxweynha Somaliland iyo wafdigiisa ayaa waxa halka ku soo dhaweeyay xubno kamid ah mas'uuliyiinta marka ay kulamadu ay dhex mareen, sidoo kale iyadoo ciidamada gaarka ah ee sida gaarka ah loo tababaray ay hor socdeen goob kasta oo ay tagaan wafdiga Madxweynha Somaliland. Wafdiga Madxweynha Somaliland oo ay kamid yihiin wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, wasiirka madaxtooyada Somaliland, wasiirka qorsheynta qaranka, sidoo kale wasiirka ganacsiga iyo wakiilka Somaliland u jooga wadanka Faransiiska. haddaba wafdigii ayaa waxa ay guda galeen hawlahoodii shaqo, halkaas oo Dr. Maxamed Cabdilaahi aan ka wareysanayo bal hawlihii meeshan ka dhacay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga. Dr. Maxamed, waxaad ogtahay in wafdigii madaxweynuhu haatan hawsheedu ay guda galeen oo adiguna kamid tahay, bal waxaad nooga warantaa hawlihii aydan u timaadeen waad guda gasheen marka bal kulamadii ugu horeeyay aad sameyseen wasiir ka waran. horta si wanaagsan baa community-ga Somaliland ee halkan ku nool dalka Faransiiska iyo dalalka kale jaarka la ah si fiican wafdigii madaxweynaha iyo aan ka mid ka ahaynba inoo soo dhaweeyeen. aad iyo aadna waan uga mahadcelinayaa iyo warbaahinta dalmar adiga iyo tiimkaaga intaba. hawlihii aanu nimid saakay noo bilaabmeen, kulamadii ugu horeeyay hordhac ahaana waanu yeelanay. waxaana laga wada hadlay cilaaqaadka iyo xiriirka labada dal Somaliland iyo Faransiiska. waxaa laga wada hadlay sidii Faransiisku taageero dhaqaale iyo mid siyaasiba u siin lahaa Somaliland. shirkii kale ka ku xigeen oo imikaanu ka soo baxnayna waxaan xoog saarnay oo laga hadlay arinta horumarka dekedda Berbera iyo shirkadda Bolorey oo aad u xiiseynaysa ayaa laga wada hadlay. waxaan rajaynaynaa in arrimahaasi ay noqdaan kuwa dalka iyo ummadaba waxtara oo qadiyadeena iyo horumarkeena iyo sidii dalka loo horumar lahaa intaba inay ku waxtaraan. galabtana waxaa noo qorshaysan iyo beritaba in kulamadaasi ay si istooga u socdaan oo xagga xukuumadda iyo xagga shirkadda Bolorey labadaba ay yihiin kuwa isbarbar socda oo laga wada hadlayo arrimaha aan sheegay ee ganacsiga leh, horumarka leh, siyaasadda leh, iskaashiga iyo wax wada qabsiga labada dal intaba leh. waxaan rajaynaynaa in wax nuxur leh oo waxtar leh oo muuqda oo dalka iyo ummadaba wax u taraan inay ka soo baxaan baan rajaynaynaa haddii alla idmo. wafdiga madaxweynaha Somaliland ee wadanka Faransiiska jooga ayaa goob wal oo ay tagaan waxaa horkacay ciidamada gaarka ah ee markaa horkaca wafdiyada, taasoo jidadka waaweyn iyo shaariciyada wadanka magaalada Paris gaadiidka la joojinayo goob wal oo uu maro madaxweynaha Somaliland. dhinaca kalena qayb kasta oo aanu tagno waxaan ku arkaynay in calanka Somaliland markaa la suray goobaha uu madaxweynuhu u booqanayo, taasoo u ah sumcad aad u weyn guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland oo aqoonsi buuxa ka doonaya caalamka. dalmar telefishinka qaranka Somaliland magaalada Paris wadanka